السلام عليكم halkani waa Grand Online Academy magacaygu waa Dr. Maxamuud Maxamed waxaana dhagtarka bixiya maadada barashada daawooyinka ama pharmacology ee Grand Online Academy maanta casharkeenan waxaan kaga hadli doonaa insha Allah casharkeenii hore wuxuu ahaa hordhac ama overview ku saabsan daawooyinka suuxiyeyaasha iyo sida ay u shaqeeyaan casharkana waxaan kaga hadli doonaa insha Allah daawooyinka suuxiyeyaasha ee hawada ah ama inhalation anesthetics inhalation anesthetics ka ayaabaynu overview good ama aragti good ka qaadan doonaa sida u shaqeeyaan waxyaabaha saameeya inay jirka si wanaagsan u gaadhaan ama ay ugu fidaan casharkan oo faahfaahsan si aad u heshid ama aad u daawatid isagoo free ah waxa aad ku dhufataa linkiga hoose insha Allah sidoo kale ha moogaanina inaad videogan sii baahisaan si uu dad fara badan u gaadho Assalamu alaykum halkani waa Grand Online Academy magacaygu waa Dr. Maxamuud waxaan maanta ka hadli doonaa insha Allah daawooyinka suuxdinta loo isticmaalo loo yaqaan marka inhalation anesthetics hawada ah gaaska ah ee qofku neefsanayo ayaynu ka hadli doonaa insha Allah intaan casharkeena bilaabin waxaad ka codsanayaan inaad videogan sii baahisaan si dad fara badan u gaadho insha Allah marka mashiinkan aad aragtaan ayaa marka loo isticmaalaa ama ay ku dhex jiraan daawooyinkani inhalation anesthetics ku waa gas weeyaan qofka uu neefsanaya marka sanbabadii ay tagayaan sanbabka markay tagaan bay kadibna dhiigga raacayaan dhiigga markay raacaana maskaxday tagayaan markaas ay marka qofka suuxinaya this is the anesthesia machine ma mashiinka la isticmaalo marka inhaled anesthetics ka ama inhaled gases ka inta badan waxa loo isticmaalaa iyaga maintenance wanagina stage ka hore uga soo hadlay casharkeenii hore maintenance baa loo isticmaalaa ama in lagu sii wado oo lagu joogteeyo suuxdintii marka qofka la siiyo IV agent sida propofol oo kale mid xididka laga siiyo oo iyadu induction loo isticmaalayo ama bilaabayso depth-ka ama heerka ay gaadhsiisan tahay suuxdintuna waa la bedeli karaa iyadoo la bedelayo marka ama la kordhinayo ama la yareynayo concentration-ka ama xaddiga dawada ee qofka la siinayo bukaanka inhaled agentsku ama dawooyinkan la neefsanayo ee hawada ah marka qofka lagu suuxinaya waxay leeyihiin steep dose response curve markastoo dose-ka la kordhiyo response-kuna uu sii kordhaya macnaheedu weeyaan sidoo kale waxay leeyihiin very narrow therapeutic indices horaan uga soo hadalnay bilowgii pharmacology-ga narrow therapeutic index waxa haddii in yar dose-ka la kordhiyo waxa weeyaan oo hal intii loogu talagalay wax yar la dhaafiyo qofku waa ku dhiman karaa taxadir buu u baahan yahay sida ogeed difference-ka u dhaxeeya xaddiga marka qofka lagu suuxin karo iyo xaddiga halis gelin karaa buu yar yahay waliba ma jiraan sidoo kale wax lagu hadiiba qofku waxa weeyaan uu halis ku galo wax lagaga hortagi karo ama lagu joojin karo halistaasina ama hadduu qofku waxa weeyaan respiratory depression ay gaarto oo neefsashadii bay istaagto wax lagu joojin karaa ma jirto no antagonist exist marka taxadir uun marka hore in la muujiyo ayaabay noqonaysaa intaanaynu ka hadal dawooyinka aanaynu bilaabin qaybahani aad bay muhiim yihiin marka common features sidii maxay astaamaha ay leeyihiin inhalation anesthetics inta badan waxa waa non flammable olol ma sameeyaan oo waxa wax olol sameynaya maaha non explosive agents weeyaan waxaan qarxin weeyaan waxaa ka mid ah marka nitric oxide ama nitrous oxide iyo waxa weeyaan volatile kuwa hawada raacayo gas oo kala ay ka mid yihiin marka halogenated hydrocarbons maxay sameynayaan marka dawooyinkani waxay yareeyaan cerebrovascular resistance waxay keenaan maskaxda xididada maskaxdu inay marka ballaadhaan vasodilation ku dhaco kadibna waxay kordhinayaan brain perfusion ama dhiigga maskaxda imanaya soo kale waxay keenaan inhalation anesthetics ku bronchodilation inay kala bixiyaan airway-ga bronchodilation bay keenaan laakiin waxa kale sameeyaan decrease both spontaneous ventilation qofka neefsashadiisa caadigiina hoos bay u dhigaan waxa kale ay keenaan marka hypoxic pulmonary vasoconstriction oo macnaheedu yahay increased pulmonary vascular resistance in poorly aerated regions of the lungs marka maxay keenaan bronchodilation bay keenaan sidoo kale waxay hoos u dhigaan spontaneous ventilation iyo
hypoxic pulmonary vasoconstriction kana hoos bay u dhigaan. Waxaa laga wadaa marka jidhkeenu uu hawadu ku yaraato ama hypoxia dhacdo, sambabada waxaa ku dhaca vasoconstriction, xididada sambabku way isku soo ururaan si meeshii hawadu ku yarayd dhiigga looga duwo oo markaa qayb kale loogu leexiyo. That is known as hypoxic pulmonary vasoconstriction. Waxa markaa macnaheedu waxa weeyaan waxa bata pulmonary vascular resistance, macnaheedu xididada yaryaraada meelaha hawadu ay ku yartaa ama oxygen ku yartaa si dhiiggii loogu wareejiyo meelaha oxygen ku badan tahay weeyaan. Kataana way keenaa oo hoos bay u dhigaan oo mushkiladaasi inay timaadana way yareeyaan dawooyinkan markaa inhalation anesthetics. Potency marka laga hadlayo awoodooda siday u kala awood badan yihiin maxaa lagu cabiraa? That's very important. Waa qodob muhiim ah. Marka potency-googa laga hadlayo ama xoogooga ama heerka suuxdinta ay keenayaan waxaa lagu define gareeyaa quantitatively as the minimum alveolar concentration. MAC cabirkaas la isticmaalo. Minimum alveolar concentration. Minimum alveolar concentration ku hadaba waa maxay? Minimum alveolar concentration ama MAC waxa weeye waa minimum concentration, xaddiga ugu yar ee dawadan suuxdinta ah ee waxa weeyaan qofka suuxinaysa weeyaan ama ka hortagaysa that prevents ka hortagaysa skeletal muscle movement, muruqiisa inuu dhaqdhaqaaqo. Macnaheedu waxa weeyaan suuxdin keenaysa si loo suuxiyo si qofkii loo qalo in response to surgical incision. waliba 50% bukaanada xaddiga ugu yar ee dawadana ama gaaskan ah ee suuxinaya ayaa loo yaqaanaa minimum alveolar concentration. marka numerically tira ahaan marka laga hadlayo MAC is small for potent anesthetics. Minimum alveolar concentration ku suuxiyayaasha xooga badan leh wuu yar yahay sida sevoflurane oo kale waanu badan yahay minimum alveolar concentration ku kuwa less potent ka ah. Halkaas waa muhiim. macnaheedu waxa isku opposite ah MAG-ga iyo potency-gu waa isku opposite. hadduu MAG-gu yar yahay macnaheedu waxa weeyaan potency-ga ama xooga ama heerka suuxdinta ayaa badan weeyaan. hadduu MAG-gu badan yahayna minimum alveolar concentration waxa weeyaan macnaheedu suuxiya xaddi fara badan baa qofka suuxinaya weeyaan, awoodeeduna ma badna weeyaan. marka Start clear. I think in halka aad u fahamteen. sidoo kale qodobka muhiimka waxa weeye the more lipid soluble and anesthetic markasta oo suuxiyahani uu si xooga ugu milmo subaga ama faatka the lower concentration needed to produce anesthesia waxa yaraanaya xaddiga loo baahan yahay inuu qofka suuxiso. sida awgeed awoodeedii ama potency-giina way fara badan tahay. haddaba waxaa jira qodobada qaarkood MAC ka kordhiya factors that is MAC waxyaabaha MAC ama minimum alveolar concentration kordhiya macnaheedu inuu qofku degdeg u suuxo keenaya. Make the patient less sensitive waxaa ka mid ah hyperthermia kulaylka faraha badan leh. waxaa ka mid ah drugs that increase CNS catecholamines oo kale dawooyinka badiya CNS catecholamines ee epinephrine or norepinephrine oo kala badinaya iyo hadduu qofku ethanol ama alcohol in fara badan isticmaalayay. macnaheedu waxa weeye waa waxyaabaha ka dhigaya qofku inuu hore u suuxi waayo baa laga wadaa. MAG-gu hadduu kordho macnaheedu waxa weeye potency-gii ama awoodiina hoos bay u soo dhacday. marka qofku waxa ka dhigaya make the patient less sensitive, mid aan si fiican uga jawaabaynin dawadii suuxdinta. qodobada yareeya MAG-ga ama kordhiyo qofku inuu degdeg u suuxana waxaa ka mid ah da'da qofka waaweyn, qabowga, uurka gabadha uurka leh hadduu qofku sepsis ku jiro ama xaalad infection u jiro, acute intoxication hadduu qofku si degdeg u sumoobo ama ugu sumoobo dawadan, concurrent IV anesthetics haddii lala isticmaalo suuxiye kale, haddii lala isticmaalo dawooyinka alpha adrenergic receptor agonistka sida clonidine iyo dexamethasone xagga dambe aynu ku arki doonaa insha Allah. clonidine anti-hypertensive ayaad ku dhigan doontaa insha Allah kalaaska dhexdiisa. marka waxa weeye waxyaabahaas ayaabaa qofkii inuu markaa degdeg u suuxo keenaya.
haddaba jirku sidee ayuu u qaataa dawadan suuxdinta ee inhalationka ama lagu neefsanayo qof sidee uu jirku u qaataa say jirka u gashaa waa muhiim qodobkaasina marka horta maxaa loo ujeedada inhalation anesthetic waxa weeyaan waa inay markaa maskaxdii si fiican u gaadho waxa weeyaan is a constant and optimal brain partial pressure waa inay dawadii si joogto ah waliba si fara badan ay maskaxdii u tagtaa inhaled anesthetic waa inay markaa jiraan partial pressure equilibrium very important waxa weeye wixii waa gas gaaskii sambabkii buu ku badan yahay oo waxa weeye halku jidhka ka soo galayo maskaxdiina uu ku yar yahay oo halku tagayo marka dambe waa in equilibrium ay jirtaa macnaheedu waa inuu jiro farqi u dhaxeeya haddii kale shaygu wuu istaagaya diffusionkii ma jirayo waad garanaysaa diffusionka waa in shaygu meeshu ka badan yahay ka tago meeshu ku badan yahay ka tago meeshu ku yari waxa weeyaan sambabadii oo hawadii ay soo galayso ku badan yahay ila gaasku soo galaya maskaxdiina uu ku yari marka waa inay jiraan difference u dhaxeeya oo dawadii sambabka lagu soo wado maskaxdiina markaasay ku soconaysaa haddii kale marka pressureku isku miisaanaado dee wuu istaagaya that's very important the partial pressure of anesthetic gas at the origin of the respiratory pathway haddaba partial pressure kan u dhaxeeya gaaska ama pressureka farqiga pressureka ee u dhaxeeya gaaska sambabka oo badan iyo ka maskaxda oo yar ayaa wuxuu keenaa inuu anesthetic markaa ku socdo maskaxdii oo uu ka yimaado markaa waxa weeyaan sambabkii uu dhiigga markaa sii raaco that's very important haddaba marka dambe waxaa dhacda xaalad constant la gaadhaya steady state is achieved constant macnaheedu way isku balance garoobayaan goorma steady state la gaadhaya marka partial pressurekii labada dhinac uu isku mid noqdo yani kii sambabka iyo pressurekii dhiigga ama maskaxdu markuu isgaadho steady state baa la gaadhaya xaalad constant haddaba the time course for attaining this steady state waqtiga ay ku qaadanayso in xaaladan la gaadho maxaa go'aamiya qodobada soo socda that's very important waxaa ka mid ah alveolar wash in waxa loo yaqaano alveolar wash in kuwa maxay marka macnaheedu in steady state la gaadho xaalad ay isku mid yihiin waa constant waxay isku soo dhawaaday labadii barashar kii maskaxda iyo dhiigga iyo kii sambabada marka waxyaabaha saameeya waxaa ka mid ah alveolar wash in waxa weeye this refers to the replacement of normal lung gases with the inspired anesthetic mixture waxa dhaca marmarka qaarkood waxa weeyaan alveolar washing waxa weeyaan waa inay marka hawadii caadiga sambabka ku jirta waa inay bedelaan inspired anesthetic mixture hawadii uu neefsaday qofka suuxiya ahayd waa inay bedeshaa marka waqtiga loo baahan yahay inay hawadii ay bedesho suuxiyihii uu la wareego halkii gaaska ama normal gaasiska ay ku jireen waxa ay directly proportional la tahay oo ay la kordhaysaa ama la yaraanaysaa waxaa loo yaqaano functional residual capacity of the lung functional residual capacity ama FRC waxa weeyaan waa volume of gas remaining in the lungs at the end of normal expiration waa volumeka gas ee ku hadha markuu qofku caadi u neefsado hawada uu iska saaro sambabku ma faaruqayo qayb baa kusoo hadhaysa marka xaddigaasi markastoo uu bato waxaa badanaya inta markaa isbedelka ku dhacaya exchangeka ku dhacaya gaaskii meesha ku jiray inuu la wareego markaa anesthetic ama suuxiyuhu ama dawadan markaa uu neefsanayo qofku lagu suuxinayo waxaa kaloo inversely proportional ku yahay oo uu la yaraadaa inversely opposite macnaheedu markuu dawadii gaaskii u bato ventilatory rate-ka ayaabuu opposite leeyahay waxaa laga wadaa is inversely proportional to the ventilatory rate waxa weeyaan markastoo qofku neef tuuro gaaskii uu qofka lagu suuxinayna degdeg buu jidhka uga baxaya marka waxaa mar walba meesha waa isku opposite saameyntii suuxdintuna way yaraanaysaa wey waxaa kaloo jira anesthetic uptake oo ah marka inay jidhka qaybihii kale unugyadu ee aan maskaxda ahayni ay qaataan anesthesiadii dawadii suuxdinta marka waxa weeyaan si ay jidhkii kale dawadii suuxdintu u gaadho ama gaaskii u gaadhaa maxay u baahan tahay waxay ku xidhan tahay number 1 gas solubility in the blood inta ayuu gaaskani ku milmi karaa dhiigga number 2 cardiac output-ka oo ah xaddiga dhiigga ee waxa weeyaan wadnuhu tuurayo iyo gradient between alveolar and blood anesthetic partial pressures
iyo difference-ka farqiga u dhexeeya pressure-ka alveoli-ga ama sambabada iyo ka dhiigga ee gaaskan markaa suuxyaha ah. qodobkaasi waa muhiim. si detail ah haddaba aynu imika uga hadalno. waxaynu idhi solubility iyaduna waa qodob muhiima marka laga hadlayo dawooyinka suuxiyayaasha ah ee gaaska ah. very important. Solubility is very important. Solubility in the blood. waxaa lagu cabiraa waxaa loo yaqaano blood gas partition coefficient ayaa la isticmaalaa. waxa weeyaan waa index ama cabir weeyaan muhiim u ah solubility-ga. inta ayay dawadani ku milmi kartaa ama gaaskani dhiigga ku milmi karaa. marka macnaheedu waxa weeyaan waa the relative affinity, waa awoodda ama jacaylka uu u leeyahay anesthetic-gan ama dawadan suuxiyaha awlaada for the blood dhiig. macnaheedu dhiigga miyay ku milmi kartaa oo si fiican bay ula falgelaysaa mise kuma milmi karto marka la barbar dhigo compared with that of inspired gas. marka la barbar dhigo gaasiskan kale oxygen-ta iyo waxa weeyaan iyo gaaska kale caadiga oxygen-ta jirka marka la barbar dhigo intee in leeg ayay dawadani iyaduna waa gaase ayay ku milmi kartaa dhiigga ama ay dhiigga la falgeli kartaa ayaa la yiraahdaa solubility. marka waxaa lagu cabiraa solubility-ga haddaad aragto blood gas partition coefficient macnaheedu wuxuu ka hadlayaa solubility. haddaba solubility-gu maxay muhiim u tahay? waxay muhiim u tahay drugs with low versus high solubility in blood differ in their speed of induction of anesthesia. dawooyinka highly soluble-ka ee ku milmaya degdeg dhiigga ula falgelaya iyo kuwa lowga waxa kala duwan speed of induction of anesthesia. xaddiga macnaheedu si degdeg ah in induction ay u sameeyaan ayaabay ku kala duwan oo sidii ugu kala duwan imika ayaynu haddaba qodobkaas halkan ayaynu si fiican ugu fahmayna. haddaba imika markuu dawadan gaaskan anesthetic-i markuunu si fiican ugu milmaynin dhiigga with low blood solubility diffuses from the lung into the arterial blood. waxa weeye markaanu si fiican halkaas waa muhiim markaanu dhiiggii si fiican ugu milmaynin gaaskani waxa dhacaya gaasku wuxuu ku badan yahay sambabkii dhiiggii buu soo galay dhiiggii kuma milmi karayo maxaa dhacaya dhiiggii buu ku fara badanaya gaaskii isagoo marka asa gaas ah ilaa dhiiggii lama falgeli karayo. marka maxaa dhacaya waxa dhacaya barasharkii uu dhiigga ku lahaa baa kordhaya oo badanaya. barasharkii uu dhiigga ku lahaa ayaa badanaya. markuu barasharkii uu dhiigga ku lahaa oo batana maskaxdiina gaas fara badan baa gaadhaya. maskaxdii markuu gaas fara badan gaadhana maxaa dhacaya si degdeg ah ayaa qofkii uu suuxdintii u qaadanaya. dose fara badanna loo baahan maayo. labadaa qodob buu muhiim very important halkaas inaad fahanto. marka markasta oo gaaskani uu la soluble yahay oo aanu dhiigga si fiican ugu milmi karaynin waa markasta oo uu si degdeg ah markaa shaqada u qabanayo. waayo pressurekii dhiigga ayaa badanaya gaaska. hadduu dhiigga ku milmo pressurekii baa yaraanayo gaaskii badankiisa dissolved buu noqonaya. Stat kale waxa kamid ah nitrous oxide baa kamid ah waxa kamid ah desflurane sevoflurane baa kamid ah. kuwa haddaba more water dhiigga ku milmaya ee high solubility leh maxaa dhacaya sida halothane iyo isoflurane waxa dhacaya badanka moleculeski ama gaaskii wuxuu ku milmay dhiiggii marka pressurekii gaas ahaan ee dhiigga dhex jooga wuu yaryahay. partial pressurekii gaasku wuu yaryahay. sida ogeed maxaa dhacaya gaaskii mar hadduu ku yaryahay dhiiggii maskaxdana gaaska gaadhaya wuu yaraanaya. sida ogeed induction-kiina degdeg u iman maayo. induction-kii degdeg u iman marka maxaa loo baahay gaas fara badan ayaa loo baahanaya si inta milantay maaha pressure kale loo kordhiyo oo in fara badan oo kale ay dhiigga ugu jirto kadibna maskaxdii ay u gaadho ay saameyn u timaado. marka xagga kuwa la soluble-ka ayaa ku fiican induction-ka. qodobkaas waa muhiim. kuwa la soluble-ka ayaaba induction-ka markiiba induce karaynaya anesthesia. anesthetic gas with high solubility sida halothane dissolve more completely in the blood. dhiiggay ku wada milmayaan. kadibna maxaa dhaca and greater amount of anesthetic and longer periods of time. يعني xaddi fara badan oo suuxiye ah baa loo baahan iyo waqti badanba si kor loogu qaado blood partial pressure-ka. waxaan ka hadlaynaa maaha xaddiga dhiigga ku jira. hadday ku milmayso xaddiga dhiigga ku jira wuu badan yahay laakiin maadaama wuxuu gaas uu yahay waxaynu u baahannahay gaas fara badani si pressure-ka marka partial pressure laga hadlayo
waxa weeye waa inuu gaas fara badan dhiigga ku jiraa intii dissolve garowday maaha marka maadaama uu degdeg intiiba u milmayso wuxuu u baahan yahay xaddi fara badan oo suuxiyo ah oo hawo ah si pressurekii kor loogu qaado kadib maxaa badanaya time of induction waqtiga inductionku bilaabay ayaa badanaya iyo recoverygaba alreadyna dawo fara badan baa dhiiggii gashay marka waqti badan bay qaadaysaa intay ka baxaysaana soo kale waxaa slower change isbedel yar oo ku dhacaya depth of anesthesiada oo qofku markiiba anesthesiada stageskiisi degdeg isku bedbedeli maayo very important qodobkaasi wax filaynaa si fiican u fahamteen qodobka labaad ee saameynta ku leh dawooyinkan suuxiyaha ah ee hawada ah waxaa ka mid ah cardiac outputka cardiac outputka waxa weeyaan waa inta dhiiga uu tuurayo wadnuhu marka mar kasta oo wadnuhu dhiig fara badan tuuro waa mar kasta oo waxa weeyaan suuxiyihii uu jidhku uu dhilan dhiiggii baa ay raacayaan intay dhiiggii raacaan laga fogeeyo maskaxdii oo jidhka kale lagu baahiyo marka markuu cardiac outputku badan yahay inta maskaxda gaadhaysa yaraanaysa that's very important inta maskaxda tegaysa ayaa yaraanaysa oo wuxuu sameynayaa cardiac outputku wuxuu sameynayaa removal of anesthetic inuu anesthetic ama suuxiyihii geeyo peripheral tissue-ga dhiiggii lan jidhkii oo dhan buu ku tuurayaa peripheral tissue-guna maaha meesha shaqada laga qabanayo maskaxda laga qabanaya marka cardiac outputku markastuu bato iyo pulmonary blood flow-gu markuu bato waxa badanaya increase uptake of anesthetic into the blood inuu dawadii suuxiyihii ay markaa dhiigga gasho kadibna anesthetic-kii waxaa qaadanaya markaa unugyadii jidhka oo dhan maaha maskaxdii gaari maayo marka dawooyinkan suuxiyaasha ee hawada ah ama la neefsanayo higher cardiac output waxa weeyaan macnaheedu waxa weeyaan inductionkiina uu yaraanaya macnaheedu inta maskaxda gaaraysa ayaa yaraanaysa sidaa awgeed halkaa qodob muhiima baa ku jira aan doonaya inaad aad u fahamtaan dadku markuu qofku shock ku jiro hadduu BB-giisu low yahay qofka shock buu ku jira cardiac outputkii baa yar marka waa in dhowskii laga yaraya haddii isagoo qofku shock ku jira dhowska loo kordhiyo macnaheedu waxa weeyaan wadnihii dhiig fara badan ma tuurayo marka inta dhiig ama dhiiggii badankiisa waxaa loo shift garaynaya maskaxda iyo xubnaha muhiimka marka anesthesia ama dawadii suuxdinta in fara badan baa maskaxda gaadhaysa kadibna waxaa sii dhacaya severe CNS depression marka waa in laga taxadiro markaasoo kale dhowska la yareeyo sidee u shaqeeyaan mechanism of action waxaad ogaataan dawooyinkan suuxiyayaasha ee gaaska ama general anesthesiada suuxdinta guud dhammaanteed ma jiro there is no specific receptor meel gaara oo ay ku dhegayaan ma jirto laakiin suuxdinta siday ku keenaan waxa weeyaan waxa ay badiyaan sensitivity-ga ama dareenka gamma aminobutyric acid ama GABA maadada la yiraahdo waa neurotransmitter inhibitory neurotransmitter weeyaan receptorskii ay gaabadu ku dhegaysay ayay sensitivity-googa ama dareenkooga badiyaan kadibna waxa badanaya markaa gaabadii baa receptorskii si fiican ugu dhegaysa gaabadii markay si fiican ugu dhegto GABA waa maxay waa inhibitory neurotransmitter oo waxay samaysaa chloride ion channels ayay furtaa chloride channels baa furmaya chloride channelskaasi markay furmaan selkii waxaa ku dhacaya hyperpolarization neuronki macnaheedu hyperpolarization waxa ma shaqeynay neuronki depolarizationkii opposite-kiisa weeyaan neuronku suu dareen u gudbiyo waa depolarization waa inuu dhaco marka hyperpolarization baa ku dhacay more negative buu noqonayaa selka gudihiisa halkii uu ka noqon lahaa more positive marka waxay badiyaan sensitivity-ga receptorska ay ku dhegto maadada la yidhaha GABA ama gamma aminobutyric acid kadibna waxaa dhacaya postsynaptic neuronal excitability synapse waxa weeye waa perisynaptic iyo post marka perigii markuu fariintii soo gudbiyo postkiina waa inuu fariintii sii gudbiyaa marka postkii baan waxa weeyaan amar fiican qaadanayn oo shaqadiisa hoos u dhacaysa marka fariintii gudbi mayso maskaxdiina marka waxaa dhacay CNS depression activity-ga maskaxduna way yaraanaysaa labada nitrous oxide iyo ketamine iyagu waxay kaga duwan yihiin anestheticska kale iyagu shaqo kuma leh GABA receptors GABA A receptorska saameyn kuma leh marka iyagu maxay sameeyaan say u shaqeeyaan iyagu weeyaan marka waxa weeyaan iyagu waxay u shaqeeyaan waxay xanibaan N-methyl D-aspartate receptors ana NMDA receptors NMDA receptors waxa weeyaan waa borotiino ama receptors ay ku dhegto maadada loo yaqaano glutamate
glutamate marka glutamate waa excitatory neurotransmitter iyadoo shaqaday kordhisaa marka excitatory neurotransmitter kaasi ama glutamate ku halkuu ku dhegi lahaa ayay xadidaan ketamine iyo nitrous oxide kadib markay xadibaan maxaa dhacaya fariintii gudbi mayso ileen excitatory neurotransmitterkii si uu fariintii u gudbiyo waa inuu receptorkii ku dhegi lahaa oo laga shaqaysiya marka receptorkii bay kaga dhegayaan iyagu gaaba receptorska ma stimulate garaynayaan ama ma carinayaan laakiin NMDA receptorska ayay ku dhegayaan that's very very important waxaan filaya marka inaad si fiican u fahamteen mid baan uga sii hadli doonaa insha allah inhalation anestheticska intaas waxa weeye waa hordhac guud oo ku saabsan dawooyinka suuxiyayaasha ah ee marka hawada ama gaaska inhalation anesthetics mid ayaynu uga hadlaynaa insha allah cashirkeena dambe halkaa inoogu joogo soo kale ha moogaanin inaad videoga sii baahaysaan insha allah wixii su-aale aad haysaan ama meesha aad fahmi weydaan insha allah waxaad nagula wadaagi doontaan commentka insha allah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu